salaamullaahi calaykum subax wanaagsan daawadayaal qodobada wararkaanu idiin haynana waxaa ka mid ah farmaajo oo xilal cusub u magacaabay Fahad Yaasiin iyo xubno kale shirna iclaamiyey rooble oo jawaab degdega ka bixiyay tallaabadaasi uu farmaajo xilalka ugu magacaabay Fahad Yaasiin iyo mas'uuliyiinta kale weerar culusna ku qaaday midowga musharaxiinta oo jawaab degdega ka bixiyay digreetada farmaajo qoraal ka soo baxay xafiiska farmaajo ayaa Fahad Yaasiin loogu magacaabay kadib markii uu iska casilay xilkii agaasimaha NISA sida lagu sheegay digreetada farmaajo 18 bishan ayuu madaxweyne farmaajo shir isugu yeedhay golaha amniga qaranka si buu yiri looga horjeediyo warbixinta laga dalbaday NISA kiiska gabadha la leeyahay qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu u dhignaa sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mudnaanta siinaya dardargelinta iyo horumarinta joogteynta howlaha baaxadda leh ee horyaala hay'adda amniga qaranka waxa uu xeer madaxweyne ku soo saaray qodobadan madaxweynuhu waxa uu aqbalay istiqaalada uu soo gudbiyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isagoo ku bogaadiyay shaqadii wacnayd ee uu ka qabtay dib u habeynta hay'addaasi madaxweyne farmaajo ayaa u magacaabay gaashaanle sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud oo haatan ah taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir si uu si ku meel gaar ah u hogaamiyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inta laga soo magacaabayo taliye cusub oo ku yimaada hab waafaqsan sharciga iyo dastuurka ku meel gaarka ee dalka madaxweynaha ayaa u magacaabay mudane Cabdirashiid Muuse Cali in uu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka waxa uuna ku amaanay shaqada hufan ee uu ka soo qabtay taabogelinta siyaasadda amniga qaranka madaxweynaha ayaa sidoo kale u magacaabay mudane Fahad Yaasiin xilka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu isugu yeedhay kulan ay yeelan doonaan guddiga amniga qaranka 18 bishan September aynu ku jirno si guddiga looga horjeediyo warbixinta laga dalbaday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo saaray qoraal jawaab u ah qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweyne farmaajo qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu ku aqbalay shaqo ka joojinta Fahad Yaasiin uguna magacaabay xilka cusub ra'iisul wasaare Rooble ayaa sidoo kale weerar cusub ku qaaday madaxweyne farmaajo isagoo ku eedeeyay in tallaabooyinka uu qaadayo ay yihiin kuwo lagu carqaladeynayo in si dhameystiran looga gungaadho kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo horay hay'adaha cadaaladda iyo sharciga looga hor istaagay in ay baadhis buuxda ku sameeyaan kiiskaasi qoraalka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay sidan ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble wuxuu soo dhaweynayaa aqbalaadda iscasilaadda shaqo ka joojinta agaasimihii hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ra'iisul wasaaruhu wuxuu farayaa agaasimaha guud ee kumeel gaarka ah ee NISA Sareeye Guuta Bashiir Maxamed Jaamac in uu si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa sidoo kalena saraakiisha hay'adaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka waxa uu amrayaa in ay si buuxda ula shaqeeyaan agaasimaha cusub ee hay'addaasi Sareeye Guuta Bashiir Maxamed Jaamac ra'iisul wasaaruhu wuxuu ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa in qoraalada ka soo baxay madaxweynaha 6 bisha 9 iyo 7 bisha 9 ay muujinayaan in uu weli daba socdo mas'uuliyadda doorashooyinka iyo amniga ee uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha waxa kale oo ra'iisul wasaaruhu ka walaacsan yahay tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu in ay yihiin kuwo lagu carqaladeynayo in si dhameystiran looga gungaadho baadhista kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo horay hay'adaha cadaaladda iyo sharciga looga hor istaagay in ay baadhis buuxda ku sameeyaan kiiskaasi ra'iisul wasaaruhu wuxuu wax laga xumaado u arkaa in xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed la siyaasadeeyo taasoo ah dhaqan halis ku ah hanaanka dawladeed ee dalka waana in ay ka waantoobaan cid kasta oo ku fikiraysa arrintaasi ra'iisul wasaaruhu waxa uu mar kale ku adkeynayaa xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay dardargeliyaan howlaha baadhista kiiska Ikraan Tahliil Faarax si degdeg ahna u horgeeyaan maxkamad awood u leh waxa kale oo la farayaa dhammaan taliyeyaasha ciidamada qalabka sida in ay si buuxda ugu gacan siiyaan xeer ilaalinta ciidamada iyo hay'adaha sharcigu in ay gutaan waajibaadka ka saaran arrintan ra'iisul wasaaruhu wuxuu hay'adaha amniga farayaa in ay adkeeyaan amniga iyo xasiloonida guud ee dalka ilaaliyaana xuquuqda muwaadiniinta isla markaana ka feejignaadaan tallaabo kasta oo wax u dhimi karta xorriyadda iyo xuquuqda aasaasiga ah ee dadweynaha Soomaaliyeed ra'iisul wasaaruhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay gacan ka geystaan sidii ay cadaalad u heli lahayd Ikraan Tahliil ugu dambeyntii ra'iisul wasaaruhu isaga oo ku hadlaya magaca golaha wada tashiga qaranka
wuxuu shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u xaqiijinayaa in la dardargelin doono arrimaha doorashooyinka dalka oo si wanaagsan u socda, waxaana ku baaqayaa in loo midoobo sidii ay si nabadgelyo ugu dhammaan lahayd doorashadu, isla markaana looga hor leexin lahaa wax kasta oo carqaladayn kara. dhanka kale, qoraalka digreetada ahaa ee xalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laga mamnuucay warbaahinta qaranka kadib amar ka soo baxay Ra'iisul Wasaare Rooble. sidoo kale, wariyeyaasha warbaahinta qaranka u qaabilsan Villa Soomaaliya ayaa laga saaray 3 page ee telefishinka qaranka, raadiyo Muqdisho iyo wakaalada wararka ee Sona. sida ay wararku sheegayaan, xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa wasiirka warfaafinta faray in warbaahinta dowladda laga joojiyo wararka ka soo baxaya Villa Soomaaliya, waxaana amarka bixiyay wasiirka warfaafinta Cismaan Dube oo fulinaya amarka Ra'iisul Wasaaraha. agaasimaha warfaafinta Villa Soomaaliya ayaa sidoo kale laga saaray dhammaan wixii awood baahineed ah ee uu ku lahaa bogga warbaahinta qaranka ee Facebook iyo baraha kale ee bulshada. tallaabadan ayaa ka dhigan in warbaahinta qaranku ay gacanta ugu jirta Ra'iisul Wasaare Rooble xilli ay u muuqata in dalku uu galay loolan awoodeed oo u dhexeeya Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha. arrintani waxay sidoo kale muujinaysaa in ay sii xidhmayaan oo ay xubno tiradoodu kooban tahay ka taageersan yihiin dowladdiisa. wararka ayaa sheegaya in wasiirka warfaafinta Cismaan Dube iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Al Cadaala iyo inta badan xubnaha golaha wasiirada ay taageersan yihiin Ra'iisul Wasaare Rooble. madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay la taliyihiisa amniga qaranka u magacaabay taliyihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin, kaas oo Ra'iisul Wasaaruhu hore xilka uga qaaday. sidoo kale, Farmaajo ayaa digreetadiisii taliyaha hay'adda NISA si kumeel gaadha ugu magacaabay taliyihii hore ee nabad sugidda gobolka Banaadir Yaasiin Farey, halka agaasimaha guud ee madaxtooyadana uu u magacaabay Cabdicasiis Muuse Cali. khilaafka Farmaajo iyo Rooble ayaa cirka isku sii shareeraya, waxaana sida muuqata uu Farmaajo xasaanad uu isku difaaca u raadinayaa Fahad Yaasiin oo loo haysto kiiska afduubka gabadha la leeyahay ee Ikraan Tahliil, balse Farmaajo ayaa dadaalkiisa isugu geynaya in la baabi'iyo kiiskaasi. kulankii lagu dhexdhexaadinayay oo shalay ay isugu yimaadeen Farmaajo iyo Rooble ayaa fashil ku soo dhammaaday kadib markii uu Rooble ku adkaystay xilka xayuubinta Fahad Yaasiin, magacaabista taliyaha kumeel gaadhka ee NISA Bashiir Goobe iyo sidoo kale baadhista kiiska Ikraan Tahliil. dhinaca kale, golaha midowda musharaxiinta ayaa cambaareeyay falalka uu ku kacay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qoraal ka soo baxay midowda musharaxiinta oo loogu digayo madaxweyne Farmaajo isla markaana lagu taageerayo Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa waxaa lagu yidhi sida tan: goluhu wuxuu saraakiisha ciidamada ugu baaqayaa in aysan u hoggaansamin go'aanka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday. golaha midowda musharaxiinta ayaa cambaareeyay falalka ay sheegeen in uu ku kacay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay sheegeen inay yihiin kuwa baalmarsan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u degsan. goluhu wuxuu u arkaa go'aamadaasi inay yihiin kuwa lagu carqaladaynayo dadaalada Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ku aadan in baadhitaan daahfuran oo cadaalad ah la marsiiyo kiiska Ikraan Tahliil, sidoo kalena lagu xagaldaacinayo doorashooyin daahfuran oo waqtigooda ku dhaca, ayaa lagu yidhi qoraalkan oo ka soo baxay golaha midowda musharaxiinta. midowda musharaxiinta ayaa sheegay inay bulshada Soomaaliyeed ogaadeen in go'aamada Farmaajo ay yihiin kuwa loogu talagalay in lagu khalkhal geliyo xasiloonida iyo ammaanka guud ee dalka.